هاني horta way jirtaa atiriisha aan aniga qaasatan jeclaho taageero u ahay kaajal waaye een waxaana dhacday boob kaajal inta filin ay samaysay in aan keligay u hadlo daawadayaal kusoo dhawaada saxafi films oo aalaaba ka faaloota arrimaha Hollywoodka barnaamijyada hore uga bixi jiray saxafi waa uu ka duwan yahay waxaa barnaamijka marti noogu ah hooyada fanka dhanka turjumaada hooyada dhanka fanka jileenka marka ay noqoto waa qof aad iyo aad noogu weyn barnaamijka ayay marti noogu tahay codkeeda marka aad maqashaan ayaa daawadayaal fahmi doontaan ee kusoo dhawo barnaamijka caaqil oo ku dhawaay barnaamijka waa salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay salaamu calaykum ramadaanul kariim waxaan gaar u salaamayaa taageerayaasheeda meel walba ay joogaan magacayga kulay adiga waxaad igu xujaysaa inaan aniga sheego laakiin waa sheegaya Nimco Axmed Heebe waayo magacayga dhammaan salaamiin ummadda Soomaaliyeed adigaba nimco aad baad u maasan tahay maadaama barnaamijkan aad ogolaatay inaad marti noogu noqoto saxafi films waxaa daawataa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo adiga fanku ah taageero ku ah markastana dee filmadaada daawan jiray muddo badanna fankan waad ku soo jirtay su'aasha ugu horeysa aan rabo inaan ku weydiiyo nimco waxay noqon doontaa filimkaaga kuugu horeeyay ee aad microphone inta qaadato aad turjunto ama codkaaga u galo ma xasuusan kartaa والله horta waqti dheer ka soo wareegday waxa waaye 96 markii ugu horeysay oo film aan turjumo bilooyinka dambe bishii 8aad bishii 9aad meelaas laakiin waan xasuustaa filmkii ugu horeeyay oo mikrofoonka inta qabta aan hadlo wuxuu ahaa film la yiraahdo George da Hosigandar Amirqan la yiraahdo wada kaas hal beejir kulaha aan ka hadlay filmkii ugu horeeyay oo codkayga ugu horeeyay la tijaabiyo okay waa gartay kaas wuxuu ahaa filmkii koowaad ee codkaaga la tijaabiyay filmkii koowaad ee codkaaga markii la dhageystay ay dadku ay arkeen la yiri qoftan waxay u qalantaa in atiriisho loo dhiibo oo way qaban kartaa way ka soo bixi kartaa atiriisho buuxda oo aad filmka lead role hogaamiyaha filmka atiriisha ka noqoto adigana aad noqotay atiriishada koowaad ee filmka inta bilowda dhamaystirta filmkaas waxaan ka rabnaa magaciisa iyo atiriishadii markaas adiga aad codkaaga ugu deeqday aad u hadlaysay horta filmkaas markii aan ka hadlay oo codkeera ku lahaa Fuad Maxamed Xashiiqay walaalkay qaali ah oo muddo badan aan soo wada shaqeynay markaas shirkadda Alfagi mas'uulka ahaa isaga ayaan qaas ahaan u laabo oo markii ii dhiibay gabadha lagu proveynay codkayga okay way markuu dhahay wuxuu yiri weega dambe gabadhan markii nala shaqeynayso waa in atiriisho loo dhiiba filmkii ugu horeeyay oo atiriisho la ii dhiibay wuxuu ahaa film la yiraahdo Raja Babu oo Govinda wado Krishna Kapoor aan u hadlay waa mahadsantahay Krishna Kapoor ayay ahayd atiriishooyin badan ayaa xilligaa jiray 90maadkii hadday ahaan lahayd Krishna Kapoor hadday ahaan lahayd Madhuri Dixit Juhi Jalwa Kajal atiriishooyin badan ayaa u soo hadashay dad badanna maanta markii ay arkaan aktaradaas hindiga ah codkaaga ayaa dhagahooda ama maskaxdooda ku soo dhaca oo adiga aad ugu luqeyn jirta ama codeyntii la saari jiray atiriishooyinkaas ma kala jecleed adiga ma kala dooran jirtay mise isdhihi kartaa atiriishadaas ayaa codkaaga uu ku fadhiyaa ama mid adiga aad gooni u taageeri jirtay oo aad jecleyd kuwa kalena kaaga dhaweyd marka ay noqoto atiriishooyinka hindida hani horta way jirtaa atiriisha aan aniga qaasatan jeclaho taageero u ahay kaajal waaye waxaana dhacday boob kaajal inta filin ay samaysay in aan keligay u hadlo oo abaar ka horna inaan kaaga sheekeynaya aan jeclahay barnaamijkaas marka atiriishooyin kale taa waxa loo raaniyaa u badan waxa u badan British Sinda iyo kaajal waa saddexda qaaska iyo ah ani aan taageero oo jeclahay inkastoo kaajal birma tahay laakiin waxaan isdhihi karaa maanta qofka kaliya oo ani maadaama hobkii ani naftirkeyga aan taageero u ahay hobigeyga ay tahay kaajal inay tahay gabdhahaas kalentana sidoo kale waa jeclahay iyagana Manduri oo kale Juujal oo kale laakiin qofka aan gooni ugu badanahay waa kaajal iyo Krishna Kapoor oo kale naagta la raani maqarji British Sinda okay marka atiriishooyinka marka loo hadlayo way kala hadal badan yihiin qof waxaa jira hadalkiisa dee aad raacitaanka aad raacaysa nimco turjumaada ilan waan naqaanaay kaajal ma kaaga fududahay kuwa kale marka la yiraahdo hadalka markay careysan tahay oo kale markay faraxsan tahay oo kale mararka qaar asdhigi karto qofkan maanta daldalinkiisa aad ayuu u badnaa filimkan kuwa kale ma ka hadal yar tahay mase jirta atiriisho adiga ku dhibta gaar ahaan adiga nimca inta lagu dhibay leeyri nimco atiriishadan bal qabo daldalankeeda ama hadalka qaabkay u hadlayso xogaa kugu adkaaday mise waxaad isleedahay atiriisho kasta oo film hindiya keenta markii nimco hayba loo dhiibo nimco hayba qoftaas meel bay saari kartaa عقل هرتس أماني مايو وحافي عن وعلى هرتا سومالي كستا إذا أمان أفكار مكاغورس لكن بلشود إنه كشكتا في عن لكن أنا شخصي أهم ما أركن أتريش إدبتو
atriishooyinka inta aan taageero ani aan u hadlay horta atriisho walba aan u hadlay ay nooc laadaradan u hadlay atriishan u hadlay hooyo waalan oo kale aan u hadlay naakre xamar afre xamarkan la yiraahdo kale ku hadlayso kale aan u hadlay laakiin ma qiyaasi karo filimkii iigu dhibka badnaa oo atriisho war badan oo ku daalay laakiin waqtigaas waan soo baxayay waxaan ahaa qof inana jiheyso shaqada diyaar u ah u furfuran filimka la yiraahdo Soomaalida badan ay u yaqaanaan maalaha xaqaaga dhaxso atriishada aad ka warka badan tahay waa filim hadal badnaa laakiin xilligeena taagnaa aad iyo aad maalaha xaqaaga dhacso aad bay raani filimka u daldalmaysaa filimka la kufsanayo waa garanay okay dad badan baa adiga waxay codkaaga yaqaanaa laakiin waxaa suurtagal ah jiilka maanta jooga ee filmaanta hindida aadka u daawada codkaagana jecel adiga filimo muuqaala oo aad duubtay ma jiraan macnaha mase dhigi kartaa filimadaas way kala fiicnaan filimada waa taqaanaa blockbuster qayb baa ah oo dadka ay aad u jecel yihiin filimo muuqaala oo aad samaysay oo Soomaaliya aad jishay dhanka macnaha muuqaalka marka ay noqoto wax ma nooga sheegi kartaa way jiraan filmaan aan sameeyay 1 iyo 2 ma ahan ugu yaraan markay ugu yartahay 8 filmaan aan sameeyay way jirtaa oo aniga atriisho ka ahaa hore aan soo sameeyay xilliyadii hore waxa igu dhib badan ama igu adagna ma ahayn markaas waqtigaas shaqadeedii ahayd inkastoo muddo dheer aan joojiyay oo markii aan dhowr xaba sameeyay aan iska joojiyay riwaayadaha iyo filmaantaba inaan jilo oo film turjumadeeda kaliya aan ku ekaado way jiraan okay marka waxaan ka rabnaa filimadaas aad jishay ama riwaayadahaas magacyadooda mid iyo 2 ama 3 waxaad ka xusi kartid oo laga xasuusan karo oo caana oo aadna dadka ay u jeclaayeen bal ma noo sheeg والله وجران waxaa jirta riwaayad yiraahdo canaad oo xilli hore aan jiray oo ummadda Soomaaliyeed meel bay joogan dabcan 90% ay yaqaanaan oo caan ah riwaayad kale oo iyadana la yiraahdo sir jaceyl adiga dhowr riwaayad oo magaalada caan ku ah laakiin qaasatan waxa dadka saameyn ku wada yeeshay riwaayadaas canaad oo waqtiga burburka Maxamed Siyaad Bar markuu dhacay kadib riwaayada ugu horeysay ee tilmaan iyo maxaa la yiraahdaa soo jiidasho ku sameysay dadka ku nool iyo dadka dibadda ku noolba canaad ahayd okay waa maasan tahay marka dhanka waxaan soo noqonaynaa hindiga aktar badan ayaa la daadihisay filimo marka ay noqoto adiga atriishadii baad haysaa aktarna waxa waaye kale ee Soomaaliyeedna wuxuu u hadlayaa atoorihi okay aktarinta filimada aad la soo wada daadiso aad la soo turjuntay oo aad qaybta ka wada noqoteen ma isdhihi kartaa qof waxaa jira ay kuugu baxda markii la yiraahdo hebel baa maanta aktarka qabanaya iyo oo isleedahay xamaasad uu ku yeelanayo macnaha markay noqoto wada hadalkiina aad wada qaybsanaysaan hadday noqoto dhanka jacaylka hadallada ereyma macaan baa filimo badan oo adiga aad jishay aad turjuntay ka buuxa yaa isdhihi kartaa si aad bay kuugu bixi jirtay markii aad dib u laabato horta aniga la wiil la soo shaqeeyay sida Faad Maxamed Shiiqay iyo ninka la yiraahdo Cumar la wiil la soo shaqeeyay markaan leeyahay qaasatan aan ka wada dadka muddada badan aan soo wada ceshnay soo wada shaqeynay aktaradeeda ahaa walaalahayga ahaa garbaheygana taagnaa aad ka aan u jeclay Faad Xamar ila jooga Cumarna uu maqan yahay hadda dhow laabtay isagana waa salaamaya walaalkay ilaahay nabad yeelo iyagiyo ubadkooda oo meel walba ay joogan labadaas wiil aan jeclaa markii aan qaasatan labadooda u dhaxeeyo kale sida filimka Hamraas oo kale atriishada ana oo hadlay midna Baby Doll oo hadlay midna uu hadlay ninka la yiraahdo Akshaykana way igu bixi jirtay filmaanta aadana xiiso gooniye ii lahaayeen okay waxaan soo qaadanaynaa filimka 1998 inuu haabaan u maleynayaa hadii aan qaldaneen dultu baagalhay waxa ku wada jira Maduri Dixit iyo waxa ku jira Krishna Kapoor filimkaas waxaa wada Shahruqan iyo Akshay Kumar filimkaas adiga atriishada u hadlaysay waxaan u hadlayay Krishna Kapoor 97 ahaa filimkaas Krishna Kapoor baa u hadlaysay laakiin atriishada koowaad ee filimka leader role ka haysata waa Maduri Dixit aan u maleynayo ayada waxay noqotay second-kii bay noqotay sababta Krishna u dooratay oo Maduri ugu wareegtay maxay ahayd والله aniga markaas ay timo dooraneen horta waa ku sheegay Krishna inaan taageero u ahay iyadana filmaanteeda aan jeclahay ee ka kulkul sheegay gabdhaha kale laakiin filmkaas Manduri bilowga hore waxa uu hadlaysay gabar la yiraahdo Luuji Maxamed oo walaashay ah atriishadeena fanka iigu horeysay iguna gacan qabatay iyadana hadda maqan gabadhaas marka atriishada bilowga u hadlaysay inkastoo markii dambe ay ka qabatay gabar kale oo iyadana walaashay ah hadda Mareykanka ku nool Indonesia ka qabatay marka maadaama ay Luuji aan ku sharafnay habeenkaas iyadoo umulka soo baxday inoo timid atriishadii saas ugu dayay oo aniga Krishna Kapoor aan u qabtay okay marka waxaan imaanaynaa sanadahan dambe ee hadda 2018 la maraya atriishooyinka Deepika Padukone oo kale Alia Bhatt oo kale Sonam Kapoor oo kale atriishooyin badan baa jira oo yar hadda soo baxay oo kuwii hore bedelay kuwan yararka bal sidee isku tiin yaas isdii kartaa aleelahay booski Kajal qoftii aad taageeri jirtay bay bedeli kartaa waxa la dhihi karaa atriishada koowaad bay noqon kartaa waxaan maleynayaa hadda atriishada ugu wanaagsan Alia Bhatt inay haysato sanadka hadda lagu jiro tee isdii kartaa waa ay bedeli kartaa booski Kajal والله عاقل horta gabdhaha had soo baxayaan Kajal iyo Krishna iyo Ormila xataa ma gaari karaan koodhe
sida aniga ra'yigayga waaye dad igana taageerayaan caynan laakiin aniga wax dooqayga ah kuma jirto walaa debika kobikar walaa vidia balan walaa isha tan hadda aa sheegayso aliya baadana leedahay iyada ugu sareyso oo buja baad la dhalatay wax aan taageero ma ku jiraan markii filim aan wado kale kusoo aadaan waa u hadlaa haddaan la hureen hal gabaraan ka jeclaa anuushika sharma la dhaho gabdhaha soo baxaayo marka waxaan taageero kuwan kuma jiraan waa mahadsan tahay nimco aad baad u mahadsan tahay barnaamijkan intan kuma soo koobi karno waqtigan uu ciriiri buu nagu yahay insha allah tacaala waxaan jecel lahaa in aad bal qaybtan aan qaybta koowaad ka dhigano waqtiga kale aan fursad u helnana qaybaha kale aan kugu wareysano nimco aad baan kuusoo dhaweynaya taageero badan oo codkaaga sugaya inay maqlaan iyo qaabka aad kusoo gashay jiliinkana waxay ila tahay markay barnaamijkan daawadaan in ay kuusoo hambalyan doonaan haddana waxaan ku leeyahay waa mahadsan tahay dadkana laada hadigaa mudan waa salaamayaa dhammaan sida aan hore u sheegay taageerayaasheeda inta maqalkayga iyo muuqayga taqaano inta i dhegeysanayso inta waqti xaadirkan daawanayso aan iraahda i dhegeysanayso dabcan waan isku soo noqon doonaa insha allah wareysigeena intaan kuma ekaan doono wuxuu noo noqon doonaa sida musalsalkii oo kale taxane insha allah tacaala nimco aad baad u mahadsantahay daawadayaal barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij yar oo kooban oo aynu ku wareysanayna nimco haybe oo ka mid ah dhanka fanka markay noqoto turjumaada la dhihi karo waa gabadha number 1 ah aniga lafteeda waxaan ahaa caruurtii yareeda xilligaa markii hindiga daawan jiray aad u jeclaa filmada ay ka hadlayso waxay la tahay asxaab badan oo daawanaysa barnaamijkana inay sidoo kale tahay daawadayaal barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu